maayirka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Maxamed oo ay wehelinayaan wasiirka arrimaha gudaha iyo waliba wasiirka horumarinta biyaha ayaa si wada jir u dhagax dhigay wado 5 kiiloomitir ah wadadaas oo isku xidha garoonka diyaaradda iyo magaalada Laascaanood. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood. Mashruucan ay fulinayso shirkadda caalamiga ah ee Shirako Construction Company wararkaas ka hadlay maayirka degmada Laascaanood. halkan wasiir iyo mudanayaal ugu dhagax dhigtaan wado 5 kiiloomitir ah wadadan oo lagu magac daray Ilaahay u naxariistee Garaad Ismaaciil Ducaale oo ka mid ahaa ragii Soomaaliland iyo nabadeynta beerahaba dibadda u taagay wadadan maanta laga bilaabo waxa la yiraahdaa Garaad Ismaaciil Road waa wado 5 kiiloomitir ah haddaan faahfaahin ka bixiyo wadadan waxa iska kaashaday dhererkeedu waa 5 kiiloomitir waxa iska kaashaday hay'adda Tisbalasa dawladda dhexe ee Soomaaliland iyo dawladda hoose ee magaalada Laascaanood tanna waxay ka mid tahay wadadani siyaasadda xisbiga kulmiye ee ku dhisneyd horumarka iyo nabadgelyada iyo dalkeeda horumarka gaarsiiyo ee madaxweynuhu uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi bay ka turjumaysaa waxa kaloo ummadda u bayaaminaya halkan in garoonka Laascaanood dad badan isweydiiyaan maxaa maanta laamiga loo saaray marka dadka waxaan u sheegayaa in garoonka Laascaanood maalintii Ilaahay soo godo laba faleed ay yimaadaan laba faleedna ay ka duulaan marka waa garoon faa'iido weyn u leh ummadda iyo dawladaba iyo dhammaan isu socodka xagga cirka. waxaana sidoo kale ka hadlay Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil Ducaale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka horumarinta biyaha. maanta waa maalin farxad inoo ah maanta aan helay wadooyinkii wadada ugu muhiimsanayd insha Allah waxaan ugu magac dalnaa garaadkeeni Garaad Ismaaciil Ducaale ilaahayna ha u naxariisto waanu sidceynaa insha Allah mar labaad mar saddexaadba waana muhiim bay noo tahay maanta wadadan taaganahay waana arrin aad iyo aad ahmiyadeeda u leh waxaan leenahay reer Laascaanood ka soo qayb galeen horumarinta ballaaran ee ka socda qurbo joogta wali baan leeyahay inta ku bixinaysan xisaas iyo balaayo iyo imtixaan kale wadooyinkii horumarka ka soo qayb gala iyo jaamacadaha iyo waxbarashada iyo horumarka qayb gala inta meel kale ku mashquulaysan aan dan idin ku jirin waxaanu halkan maanta lagu dhagax dhigay oo waliba hadeer la bilaabay saacad ka bacdi la bilaabay oo 5 kiiloomitir laamiga airportka iyo isku xidhaya magaalada aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland magacaad bixisay ee aad ugu magac darteen Garaad Ismaaciil ilaahay naxariistii haj jannaha siiyo iyana waxa weeye way idinka hambalyeeynaa magaca shirkadda Shire wax qabad hore badan waddanka ka sameynay haddana tan wadna shirkadana waxaan yara u mahad celinayaa shirkadda Tisbalasa iyo mashruuca waday dhammaantiin ilaa dawladda kuwa dawladda hoose deegaanka gobolka ku dhammaantood mahad celinaa imikana waxaan diyaar u nahay insha Allah anoo kuwa horena qabanay haddana tanna inaanu qabanno aad bay muhiim u tahay waxa qabad weyn u tahay inaynu saaka halkan ku dhagax dhigayno wadada isku xidhaysa garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascaanood iyo magaalada Laascaanood wadadan dhererkeedu waxa ay gaaraysaa 5 kiiloomitir sidii maayirku sheegay waxa iska kaashaday waxa maalgelinaysa hay'adda la yiraahdo USAID sanduuqa mucaawinada Mareykanka waxa fulinaysa hay'adda la yiraahdo FITS mashruucani waa mashruuc dawladda Tisbalasa علي ستار TV Laascaanood.